Soomaaliyey si xun wax sheeg sixir waa ka daran yahay balse heestani dhaqan xumadeedu ma tahay mid Soomaali sareynaysa ama fanaaniinta gobolka sareyn doonta waynu wada eegaynaa Cabdiraxmaan Odahay ma yahay nin heestani ujeedo ka leh kulanti waxaan wanaagsan daawaday waxaanu maanta idin haynaa fanaanka weyn Cabdiraxmaan Oday fanaankaas oo fanaan ka caan ah xidigaha geeska haddaba fanaankan oo caanka Somaliland ayaa soo qaaday hees muran weyn dhalsay heestaas oo ah hees anshax xumo ama heestaas oo ah hees kalmo ku saabsan heestani ayaa dhaqan xumadeedu waxay durbaba sareysay fanaanin ka mid ah fanaaniinta Somaliland kuwaas oo saf ku jira hadba heestani in ay sidan oo kale ula soo heesaan gabadhani oo la heesayo فنان عبد الرحمن أضي oo فنان weyn oo caan ka ah Somaliland ayaa heestan la qaaday gabadhan oo Itoobiyaanada ah nolosheedana intii ugu badneed ku qaadatay kilarka shanaad hadaba gabadhani ma tahay mid khilaafaysa shariicada Islaamka waa gabadh Itoobiyaanada waana gabadh aan dhaqan lahayn sababtoo ah waxaad ka garanaysaa ama aad ka akhrisan kartaa dhaqdhaqaaqeeda iyo muuqaalka ay sameynayso markay heestan anshaxumada qaadayso fanaan Cabdiraxmaan Oday ma yahay fanaan saxa mise waa lagu soo jiraa mise waa la ayuu soo wataa haddaba fanaanka annagoo isku daynay inaan wax ka su'aalo ayay noo suurtagal weysay balse waxaanu wararna soo gaadhay aanu ku helaynaa in culimada gobolka Maroodijeex ay ka tashanayaan arrinka heestan oo ah hees dhaqan xumo ku salaysan ayaa muddadii ugu dambeysay aad u dhex qaadaysay baraha bulshada haddaba haddii aad tahay qof heestan daawaday waxaanu ku leenahay mar kale ha u noqon inaad heestan daawato heestan oo ah hees dhaqan xumo ah fanaan Cabdiraxmaan Oday oo ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska ayaa sharaftiisa hoos u weeqday sababtoo ah heestani ayaa ah hees anshax xumo ah ama ku salaysan hees kalmo ah culimada gobolka Maroodijeex ayaa ka tashanaysa heestani sababtoo ah waa hees dhaqan xumo wadata waxayna lid ku tahay shariicada Islaamka aad ugu mahadsantahay waqtigaaga qaaliga fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo channelka rukumo oo subscribe saar isla markaana gabalka heerkaasi furo si aad ula socoto barnaamijyada 24 saac ka soo galino